mas-uuliyiin ka tirsan countiga Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda amni ee magaaladaas oo maalmihii la soo dhaafay diris la ahayd xiisado colaadeed oo u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in Mandheera uu ku sugan yahay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan Jubbaland kuwaas oo wata ciidamo hubeysan isla markaana maalmahan degan hoteelo ku yaala magaaladaasi. waxay kaloo tilmaameen in wasiir Janan uu halkaasi ku abaabulayo ciidamo xoog leh oo la dagaalama kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo iyaguna maalmahan ku sugan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo diris dhow la ah magaalada Mandheera. mas-uuliyiinta oo ka kooban senataro xildhibaano iyo xubno ka tirsan maamulka countiga Mandheera ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Nairobi waxa ay walaac xoog leh ka muujiyeen nabadgelyada iyo xasiloonida magaaladaas iyo deegaanada hoos yimaada. shirka jaraa'id ayay madaxdaasi waxa ay dowladda dhexe ee Kenya uga dalbadeen inay qaado tallaabo degdeg ah oo ay uga hortagayso dagaalo ka dhaca Mandheera iyo nawaaxigeeda, sidaas daraadeedna ay laga maarmaan tahay in Cabdirashiid Janan iyo taageerayaashiisaba si dhaqso ah looga saaro magaalada Mandheera. senatarada iyo xildhibaanada ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay in Cabdirashiid Janan iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ay Mandheera ka wadaan falalid ku ah amniga iyo xasiloonida isla markaana ay halkaasi ku haystaan ciidamo hubeysan oo iyaga taageersan. gudoomiyaha Mandheera Cali Rooba ayaa isaguna sheegay in mas-uuliyiinta iyo ciidamada Jubbaland ay degmadiisa soo galeen markii dowladda Soomaaliya ay la wareegtay gacan ku haynta degmooyinka Doolow iyo Balad Xaawo oo ka wada tirsan gobolka Gedo dirisna la ah magaalada Mandheera. gudoomiyaha waxa uu sheegay in aysan doonayn in ay fargeliyaan siyaasadda dowladooda hase yeeshee mas-uuliyad culus ay ka saaran tahay nabadgelyada ismaamulka Mandheera iyo maslaxadda guud ee shacbiga u doortay xilalka ay u hayaan. waxa uu xusay in sidoo kale xil weyn ka saaran yahay sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen shacbiga Mandheera iyo bulshooyinka dariska la ah oo ay ka dhaxeeyaan dano iyo maslaxado badan oo dhammaantoodba ku tiirsan nabadgelyada. mas-uuliyiinta reer Mandheera ayaa dowladda Kenya ka dalbaday in wasiir Janan iyo taageerayaashiisaba dhaqso looga saaro Mandheera si looga hortago ayay yiraahdeen in lagu dagaalamo shacbiga ay matalaan korkiisa loona soo jeedo dhibaatooyin aan u dhoweyn xilligan. waxay tilmaameen in aysan sharci ahayn in dad hubeysani ay hub iyo ciidan siday doonaan ula soo galaan dirisla ah ayna ka dhex wadaan abaabul dagaal oo muuqda. ugu dambeynna mas-uuliyiintu waxa ay dowladda Kenya u soo jeedinayaan in haddii ay amagangeliyo doon yihiin wasiir Janan iyo taageerayaashiisu la marsiiyo waddo kale oo waafaqsan shuruucda iyo qawaaniinta dalka iyo kuwa caalamiga ah isla markaana ay ku talinayaan in wada hadal lagu dhameeyo khilaafaadka siyaasadeed ee waayahan dambeba ka dhaxeeya labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland oo dhawaan ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho oo 5 bilood ugu xirnaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii hore gaaray magaalada Kismaayo dabadeedna uga gudbay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay markale gacanta ugu dhigi lahayd wasiirka baxsaday oo ku eedeysan dambiyo la xiriira xuquuqda aadanaha, waxayna dowladda Kenya ka dalbatay in ay qabato Janan kadibna ku soo wareejiso gacanteeda. dhinaca kale hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa iyaduna dowladda Kenya ka dalbatay in ay qabato wasiirka dabadeedna ku wareejiso dowladda federaalka Soomaaliya si ay tiri hay-addu loogu maxkamadeeyo dambiyada uu galay ee ka dhanka ah xuquuqda asaasiga ah ee aadanaha. intaasi kadib wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu gaaray degmooyinka Balad Xaawo iyo Doolow ee gobolka Gedo. waxa uu magaalooyinkaasi kula hadlay ciidamada iyo shacbiga ku nool, waxa uuna uga warramay xaaladiisa iyo waxa uu murtay muddadii uu ku xirnaa Muqdisho iyo waliba sida ay ugu suura gashay in uu ka soo baxsado xabsigaasi. hase ahaatee maalmo kooban kadib waxaa degmooyinkaasi gaaray ciidamo la sheegay in ay aad u hogeysan yihiin oo ka tirsan militariga dowladda dhexe ee Soomaaliya. ciidamadaasi oo la sheegay in ay u badan yihiin kuwa dhawaan soo dhameystay tababaro heer sare ah ayaa waxaa badankooda halkaasi geeyay diyaarada ka daabulay magaalada Muqdisho. tagista ciidamadaasi ee Balad Xaawo iyo Doolow ayaa keentay in wasiir Janan iyo ciidamo taageersan ay ka baxaan labadaasi degmo oo ay degaan halka ay ku kulmaan xuduudaha saddexda dal ee Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya oo u muuqata magaalada Balad Xaawo. wixii markaasi ka dambeeyay Balad Xaawo waxa ka aloosantay xiisada colaadeed oo khalkhal gelisay dadka ku nool magaaladaas, waxayna u muuqataa mid ka sii daraysa marba marka ka dambeeya.
mar walbana ay suuragal tahay inuu bilowdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee Cabdirashiid Janan uu hogaaminayo. wararku waxay sheegayaan in wasiirku abaabulayo taageerayaashiisa una diyaar garoobayo dagaal uu la galo ciidamada ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya ee gaaraya degmooyinkaasi. israsaasin fudud oo 2 maalmood ka hor dhex martay labada dhinac ayaa la sheegay in uu ku dhintay hal askari ayna ku dhaawacmeen 2 kale. wararku waxay intaasi ku darayaan in shacabka Beled Xaawo uu la soo darsay walaac xoog leh oo ay ka qabaan dagaal ka dhaca magaaladooda oo u keeni kara khasaarooyin badan oo aysan awood u lahayn maarantooda. waxaa iyaguna jira warar sheegaya in ay jiraan qoysas badan oo aan la xaqiijin tirakoobkooda rasmiga ah oo ka barakacay gudaha degmada Beled Xaawo. qoysaskaasi waxaa la sheegay in ay lafahooda ula carareen deegaano ka baxsan Beled Xaawo oo xilligan aysan ka heli karin adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaaska u ah nolosha aadanaha. dhinaca kale magaalada Mandheera oo daris la ah Beled Xaawo ayaa iyadana waxaa lagu soo waramayaa in ay saameysay xasilooni darrada ka taagan Beled Xaawo. sida ay sheegeen mas'uuliyiinta ismaamulka Mandheera qaarkood waxaa jira dad ka barakacay magaalada qaybaheeda xiga xuduudda Beled Xaawo oo u qaxay qaybaha kale isla magaaladaasi. marka dhinac walba laga eego xaaladda degmada Beled Xaawo ee xilligan waxaa ka aloosan xasarado colaadeed iyo dhiilo waxaana ishor fadhiya labada ciidan ee ay dirirtu ka dhaxayso oo ku kala sugan goobo isu muuqda. waxaa kaloo jira abaabulo dagaal oo aan qarsoonayn oo ay wadaan labada dhinac ee dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa Jubbaland ee daacadda u ah wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. waxaa intaasi dheer in aysan jirin wax dhaqdhaqaaqi ah oo inta la og yahay u kala dabqaadaya labada dhinac oo ku hawlan sidii loo heli lahaa xal waara loogana baaqsan lahaa dagaal iyo qalalaase markaana ka bilowda gobolka Gada iyo guud ahaanba Jubbaland. wixii warar ah ee ka soo kordha xaaladahaasi si degdeg ah ayaan idinku soo tabin doonaa haddii eeb idmo. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo dhageysiga wararkeena. haddaba si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada joogtada ah ee aan idin soo gudbin doono fadlan subscribe dheh channelkan dabadeedna taabo gambaleelka ama dawanka ku lamaansan.